الحمد لله والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على الرسول المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه الكرام وسلم تسليما كثيرا أما بعد walaalayaal khudbadeena waxay ku saabsan tahay towbada waa mowduuc aad u muhiim ah markaynu xoogaa joognaba inaynu isugu celino casharka waayo maanta waynu ogsoonahay dambigu siduu u fara badan yahay aakhiru zamaanka iyo waliba waqtigay dadku fitnaysan yihiin fitnada maantana way fara badanta ama ha ogaada ama yuu ogaanine qofku waxa uu ku raran yahay oo inuu reebo u baahan yahay dunuubaad u badan marka uu gaf ku dhacana culimadu waxay isku waafaqsan yihiin inay faral tahay inuu ilaahay u toobad keeno subxaanahu wa tacaala muhiimada iyo mansilada iyo miisaanka ay leedahay toobaddu waxa caddaynaya ilaahay baa qur-aanka kariimka ah waxa uu ku soo celceliyey 780 meelood bilafdi tawbati washtiqaaqaati kolba si loo dhigaba towbada iyo dhiirigelinteeda iyo ammaanteeda 780 meelood baa ilaahay qur-aanka ka warramay mar ficli buu ku sheegayaa siiqatul ficli marna siiqatul ism qur-aanka kariimka ah towbada aad buu inoogu dhiirigeliyey wakadalik rasuulkuna sala allahu calayhi wasalam aad buu inoogu dhiirigelinayaa ilaahay baruu yeedh muudh soo dhigay rasuulku fariin soo faraya sala allahu calayhi wasalam bushaara aayaddu xambaarsanta waa aayadaha ugu rajo badan qur-aanka قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا الضوامها يقول واحد كتل هذا النبي محمد واحد قارسي سابو لهي الضوامها يقول هذا شاكتا كوا نفته هذا ولي بكو حد كتبه هقو صنينا إلى هاي الدم بيقول دون الله فاو توبت كيانا أو صور نغضا أمرنا إلى هاي ونقوسي وحر وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون dadku liibaan bay wada jeceliina si ay u liibaantaan ha kala harina gaalay islaam dhammaantiin ilaahay wada toobad keen jamiican marka la rabbi waxa uu soo dhigay qofka inuu rajo ku hadhan tahay inaanu toobada ilaawi afala yatuubuna ila allah wa yastaghfiruna wallahu ghafurur rahim maxay u xishoon waayeen maxay ilaahay ugu soo noqon waayeen dambi dhaaf u weydiisan waayeen ila ilaahay naxariistiisu way badanta hatta al-kufaar gaalada dambiga u weyn ku jira gaalnimada ah ilaahay subxaanahu wa ta'ala wuxuu ugu yeerayaa uguna bushaareynaya inuu dambigaasi noocyadiisa kala duwan ka dhaafi doono fa in taabu wa aqaamu salaa wa aatu zakaa fa ikhwaanukum fi diin kuwa maanta colka tiina xabadu idinka dhex taagantay dagaalamaysaana cadowga ilaahay hadday saddexda arrimood isku daraan waa walaalihiinii diinta buu lahay inay toobad keenaan oo salaada ogaan oo sakadana ay bixiyaan intaa haddii laga helo idinkunba idin barbar taagay inay idin la mid yihiin godobtooda u weyni waa gaalnimada ha ka toobad keeneen toobadana waxaa ilaahay uu tilmaamayaa inay toobad wanaagsan oo caafimaad qabta noqoto yaa ayuha aladiina aamanuu tuubuu ila allahi towbatan nasuuxa توبة النصوحة مركع علماء فسرين قارهان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وخلفاء الراشدين كم ده وحاول تلمامين الشروط يا الله شروط هذا كم تقف كونوا دم بجيس كده يا أنا كنا قانونا قانا يكتها كلبتها أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم هذين نصر نقلنا نبي الله محمد سيد الأولين والآخرين حديث كي بخاري من حديث أبي هريرة dadka wuxuu ku leeyahay dad iyo how ilaahay u toobad keeno oo gefka gasheen iyo dunuubtiina ka soo noqda oo ha qoosanina anigu maalintii waxaan ilaahay u toobad keenaa in ka badan 7 jeer riwaayada muslimna waxay sheegaysaa ilaahay waxaan u toobad keenaa maalintii walba 100 jeer wardigiisa ku jirtay nabiga calayhi salaatu wasalaam astaghfirullah wa atuubu ilayhi astaghfirullah wa atuubu ilayhi 100 jeer marka galinka hore iyo galinka dambe labadaba waldigeena aynu ku darayna istighfaarta iyo towbada inagoo adooma yaryara oo inagu ilaahay u baahan haddana isagu towbada aynu u soo noqono wuu ku farxayaa wuxuu og yahay inaynu waafaqnay halkay ka macayn ujeedadiina asiibnay buu garanayaa rabbi uu og yahay subxaanahu wa tacaala amarkiisina aynu qaadanay shaydaanna aynu ka badbaadnay
xadiidka aynu khudbadda ku jiray wuxuu nabigu ku xusay calayhi salaatu wasalaam ilaahay toobadda addoonka aad buu ugu farxaa inta uu midkiin farxaya in ka badan waa qofkii oo gaadiidkiisii lumay meel cidlaa kaga lumay iyadoo sahaydii ka saaran tahay oo si kadiis ahoo lama filaana uun ku helay farxadda uu farxayo ee uu ku farxayo gaadiidkaa uu helay iyo meeshaa qarfada ah ee uu ka badbaaday farxadda ilaahay baa ka badan buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waxaynu u baahanay walaalayaal fursado way badan yihiin fursadda inaynu ka faa'iidaysanno oo qofkana haddii fursaddu ay dhaafto dhinaca diinta iyo dhinaca dunyada horumarkuu ka lumaa insaanku horumarka wuxuu ku helaa inuu fursadaha iyo jaaniska ka faa'iidaysto xadiid saxiix muslim ku sugan oo uu warinaya abi muusa alashcari nabigu wuxuu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam ina allaha yabsut yadahu billayli liyatuuba musii'u nnahaar wayabsutu yadahu binnahaari liyatuuba musii'u lleyl xataa tadluca ashamsu min maqribiha ilaahay gacantiisuu fidinayaa si uu u toobad keeno qofkii maalintii habeenkii buu fidinayaa si uu u toobad keeno qofkii maanta dembaabay oo fursadda habeenkii uga faa'iidaysto maalintiina gacantiisuu fidinayaa uu kaga aqbalaya addoomaha toobadda si uu toobad keeno qofkii xalay tag dembaabay ilaa inta ay qoraxdu ka soo baxayso halkay ka dhacdo fursaddaasi way jirtaa marka nolosha in laga faa'iidaysto ayaa nabigu inagu gubaabinaya calayhi salaatu wasalaam waxaynu u baahannahay inaynaan isqancinin isla weynaanin cibaadadeenna isku halaynin laakiin ilaahay aynu ka xishoonno subxaana wa tacaala addoonku markuu ilaahay caasiyayo hadduu ilaahay ka xishoodo rajadiisu way badan tahay waanu toobad keeni karaa laakiin haddii aanu ilaahay ka xishoonaynin oo cibaadadiisu ay la weyn tahay toobadduna way ku adagtay ninbaa wuxuu u yimi saahidkii weynaa ee la odhan jiray ibraahim ibnu adham taariikhdiisa xagga dambe insha allah aynu ku xusi waxa uhi waxaad i bartaa bal sida loo toobad keeno adigan oo cibaadadaada iyo suhdigaagu way badayn markaa wuxuu ihi waxaan kuu horraysiin lahaa haddaad doonayso inaad ilaahay caasido niyo waxaad raadsataa dhul aan kan ilaahay ahayn waa xageen ka soo helayaa buuri dhulka ilaahay baa loo yidhi ina alarda lilaah yuuriuhaa man yashaau min cibaadi haddaba haddaad dhulkii ilaahay u aqoonsantahay ha ku caasiyna ka daa buuhi macsiyada ilaan cidi waxay leedahay laguma caasiye mar kale waxaan kuu sheegayaa haddii aad doonayso inaad macsiyo iyo gaf samayso arsaaqadda ilaahay ha cunin ilaahay baa ku biiliyo ku raashimay arsaaqadiisa u daa oo ilaahay unbaa arsaaqadda bixiye sidaan u dayn karaa buuri sababka ilaahay yidhi ina allaha huwa arasaaq dulquwati almatiin dee haddaba ka xishood buuhi ilaahay ku arsaaqaya oo caasiin mar saddexaad waxaan kuu sheegi lahaa buuhi haddii aad doonayso inaad ilaahay caasido waxaad tagtaa meel aanu ku arkayn iska qariyo ka libidh وسان وقلب يا أبو سوك إلى هاي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور قفك أوركيسي أوجدي سبي إلى هاي باركيا إيش نوحي قرنا يسأل لك هذا بقول هدوك أركيا كحشود مرشنات بهدنا كعليا وحول هداد دون يسين هذه لها عاصرة مركو ملك كوي ماده فضلا نير كاذب هيقول دقنا يجي تشوش جريدة وسيدان كاجت سيدان أوران كرابو سوك إلى هاي فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ساعات ما تبلع عن تدك ساعاتنا ما هو مريان حق جريدة وقت عيمان بوي هذا هدي أنا شو هينين بورينات هكان كرتبا وأنا دائما لقيس دافين كرين تلاهي كحشودها عاسين مركز سببها مركز ساو فكرتوا وحياها كوكيني كرابول إن هذا الله يتوبتك أنت سبحانه وتعالى والله الله يلوح إلى هذا التوبة على مدى موتنا يقفكم مركز وتوبتك أنا إلا جاء أقبلي على مدها وحكم إذا أن ينقطع عن أصحاب السوء تدكيهم حماية ولا صاحب كائن بدله قابتي يا صاحب كيسين بدله أصبح علامته تاي إنه تناسلي أدول لكن هل كي هرا كم يسيادت كي حماة ولا الصعلة قف كاس علامة تسوح الشيء سأينا أنه توبت كيرين وحكم إذا بيلين علماء الدم بيجي هراين وسكداي أو شو بيجي وبدله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم إلهي وحد الدم بيجي كلا فيا مركز نلاش هذه هرا بدل شو وحاسد هذا كبذا علامتها أن يكون مستعدا للموت
in geerida uu diyaar u yahay oo xusuusta geeridu qofkii ay ku badanta alla macaasiya uu ka xishoodaa qofka geerida xusuusan waxa afraad oo calaamad u ah inuu carabkiisa haysto cadaawadda walaalahana yareeyo oo qofka haddii cadaawaddu ay ka buuxdo oo cidhiidhigu uu ku badan yahay oo isciil kaambiyayo wax badan buu xambaarsan yahay oo dunuuba mana toobad keenin towbaddu faa'iidooyin bay leedahay aan ilaahay dan u ahayn ee innaga dan inoo ah oo aynu waqti walba u baahannahay waxaa ka mid a faa'iidooyinkaa waa sababta ilaahay uu inagu jeclaado innaguna waxaynu u noolnahay u ordaynaa inuu ilaahayna jeclaado subxaanahu wa tacaala ina allaha yuxibu tawaabiin wa yuxibu lmutadahiriin ilaahay wuxuu jecel yahay kuwa jidhkoodana nadiifiya qalbigoodana towbadda ku nadiifiya waa sababta aynu kaga bixi karna liiska daalimiinta haddii lagu idhaahdo ma waxaad ku biiraysaa liiska dembiilayaasha mise liiska dadka madaxa bannaan qof waliba wuxuu leeyahay dee qof aan dembiilahayn inay noqdaan jecelaha waman lam yatub fa ulaa'ika hum aldaalimuun dadka towbadda diidaa daalimiin weeye ogaada buu ilaahay dembiilo weyni waa ka aan ilaahay usoo noqonayn u toobadkeenin dembiga aynu la roorayno waxaynu ku reebi karnaa inaynu ilaahay u toobadkeenno subxaana wa tacaala waa faa'iidooyinka towbadda waa sababun limaxwi dunuub attaa'ibu min adanbi kaman laa danba lah rasuulku wuxuu leeyahy sala allahu calayhi wasalam qofku haddii uu ilaahay si dhaba ugu toobadkeeno wuxuu ka dhigan yahay qof aan dembiba lahaynba waa sabab litabdiili alxasanaat litabdiili sayi'aati ilaa xasanaat waa sabab keeni karta haddaad ilaahay u toobad keento wixii dembi ahaabaa ilaahay intuu kaa dhaafo halkoodii xasanaad kuu dhigaya fadliga ilaahay ballaadhnaantiisa ilaa man taaba wa aamana wa camila saalix fa ulaa'ika yubadilu allahu sayi'aatihim xasanaat wa kaana allahu gafuuran raxiima qofka ilaahay u toobad keena ee ilaahay rumeeya ee camal wanaagsan la yimaada intaa isku hagaajiya anna waxaan diyaar u lahay baa ilaahay u yidhi wax alla wuxuu xumaan sameeyeen xasanaad ugu bedelo yaa laga helaa ilaahay subxaana wa tacaala waa sababun lirisqi arsaaqadaynu ordayno aynu suxulduubayno aynu bacadka iyo barafka u marayno sababahay ku fududaato waxaa ka mid ah towbadda iyo ilaahay unu dembi dhaaf weydiisano faqultu istakfiruu rabbakum innahu kaana gafaara yursil السماء calaykum midraara ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا dad iyo dunyaba iyo beero iyo biyo intuba waxay ku iman karaan inay dadka toobadoodu badan tahay istighfaartooda ay i'tiraaf bixiyaan ay gartaan inay dambiilayaal yihiin wa sababun lil hayati al hadiya nolosha maanta degan la doondoonayo ilaahay oo dambi dhaafkiisa inaad dambi dhaaf in dambiga ka dhaafo aad weydiisato istighfaarta iyo towbadda badisa lagu helaa sacaadada nolosha wa astaghfiru rabbakum thumma tuubu ilayhi yumatti'kum mata'an hasana ila ajalin musamma ilaahay oo toobad keentaan mata'an hasanan baa lagu helayaa towbad wanaagsan waxaynu raaci lahayn si aynu bal tusaale wanaagsan inoogu noqoto quraanka iyo waxyiguna uu nagu dhiirigeliyay xadiidkuba qisasu taa'ibiin baa in badan la inooga waramaa dadkii toobad keenayay qisadooda waxa la inoogu sheegayaa dadka kama wanaagsanid ee ku dayo iyagoo dambigoodu uu yar yahay ama rusushii ilaahay ama saalixiintii ama saxaabadii ayay ilaahay u toobad keenay